munaasabadan oo mid si weyn loo soo agaasimay maalintii labaadna soo dhaweyn loogu sameeyay wafdiga uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo weli ku sugan caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb waxaana ka soo qayb galay madax kala duwan oo ka tirsan golayaasha dowlad goboleedka Galmudug xubnahooda ku sugan magaalada Dhuusamareeb iyo soo kala madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug ka soo koob madaxda Galmudug waxa munaasabada joogay qaybaha kala duwan ee bulshada oo isugu jira dhalinyarada haweenka culimada waxayna guud ahaantood ahaayeen kuwa muujinaya farxad ay u qabaan soo dhaweynta ay u sameeyeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo markii ugu horeysay maalintii shalayto soo gaaray magaalada Dhuusamareeb munaasabada oo ay hadal kala duwan ka jeediyeen madaxdii ka soo qayb gashay ugu horeyntii waxa goobta ka hadlay madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan wuxuuna sheegay bulshada ku nool deegaanada Galmudug inay dagaal adag ay u soo galeen oo xilliyo kala duwan dhacay sidii ammaanka deegaanada Galmudug ay u noqon lahaayeen kuwo la isku haleyn karo wuxuuna sheegay Galmudug ahaan inay weli diyaar u yihiin si sugashada ammaanka deegaanadooda inay noqoto bilow Galmudug cusub oo laga yagleelo Galmudug dhexdeeda aan rajaynayno biidni Illaahi al-Kariim in Galmudug gacmaha isqabsato midnimadeedii ay kor u qaado wanaageedii iyo qiimaheedii lagu yaqiinay ay wax wada qabsi ku sii darto waxaan leenahay mudane ra'iisul wasaare caasimadda maanta bulshada qaybaheeda kala gedisan ee isugu soo baxay waa dadkii Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadahooda ku dhareeyay inay deegaamadan gobollada dhexe xoreeyaan oo khawaarijta ka xoreeyaan ugu dambeyntii waxaa munaasabada soo afmeeray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxaana uu goobta ka sheegay in maanta wixii ka dambeeyay loo baahan yahay in bulshada Galmudug ay gacmaha isqabsadaan dowlad ahaan wuxuu ballan qaaday in deegaanada Galmudug ay ka dhisayaan maamul aan dhicis ahayn oo dhameystiran waxaan idin ballan qaadaynaa in dowladda federaalku ay idin garab taagan tahay ka shaqaynayso danihiina idin kala shaqayn doonto Galmudug dhameystiran laakiin ma lagu shaqayn karo Galmudug ugu dambeyntii waxaan u baaqayaa xildhibaan walba oo halkan ka soo jeeda senator walba oo halkan ka soo jeeda siyaasi walba oo halkan ka soo jeeda ganacsato walba oo halkan ka soo jeeda iyo qof walba oo rag iyo dumar oo ku abtirsata reer Galmudug waxaan naloo xil saaray inaan u adeegno shacabka reer Galmudug nalooma xil saarin annagu inaan iska qabsanno dana gaarana ka raadino aan dhisno dowlad goboleedka dhammaystirna oo reer Galmudug ay xaq u lahaayeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa weli sii wata kulamadiisa oo ku leeyahay magaalada Dhuusamareeb oo loo qaadanaya qaybaha kala duwan ee bulshada oo ugu horeeyaan madaxda dowlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale xubno kamid ah culimada ahlus sunna wal jamaa Cabdi Jamaal Macalin Axmed Kalsan TV Dhuusamareeb